saddexdoodii orodkii ma aysan joojin. Kaana markay ordaysay waxay gadaasheeda ka maqlaysay Kaaba qayladooda. Markaas waxay istiri bahaladii midkiina ilaalinayay way dileen, kadibna iyaga ay ka daba iman doonaan, sidaas darteed ma aysan istaagin. Markii ay geed weyn hoostiisa marayeen, Ren si kadis ayuu istaagay. Jooji dhaqdhaqaaqooda iyo cajuusa. Markaas ayuu dhahay Ren, kadibna Toshihiro ayaa hadlay. Maanta dhan ayaa gacmaha ku jiray, waan wareerayaa. Maanta dhan waa ordaynaa, dabcan wuu jiraa wareerka, ayuu dhahay Ren. Kadibna wuxuu dhahay Toshihiro, aniga waan ordi karaa ee dhulka idhig. Kaana waxay eegaysay gacanta u haya Toshihiro. Xilligani ma aha xilligii la murmi lahaa, waa inaan orodnaa, ayuu dhahay Ren. Nasiino ayaan u baahanahay, ayuu dhahay Toshihiro. Ma nasan karno, waa inaan soconnaa, ayuu dhahay. Markaas ayay Kaana tiri, waa inaan dhuumanaa, iyadoo fiirinaysa daalka ka muuqda Toshihiro. Asagoo dhan wuu dhididayay, markaas inuu neeftuurayay. Neeftuurkaas ay kala garan weysay inuu yahay daal ama cabsi. Ugu dambeynna Ren dhulka ayuu dib u dhigay. Ren markaas indhaha ayuu kala wareejiyay. Aniga wadadayda ayaan dib u laasanayaa. Waxa ugu dambeeya rabaa waxay tahay intuu saadalka dhamaysanba Kaana ayaa gadaal u riixday iyadoo tiri isilaali. Markaasina xooggeedu wuxuu ahaa mid aad ula yaabay, lugaha ayuuna isku qabtay. Maxaa weeye, ayuu dhahay Ren. Kadibna wuxuu arkay god aad u weyn kaasoo lagu qariyay caleemo iyo jirido. Waxaa dhigay ugaarsadayaal, wuxuuna ahaa faji loogu talagalay in bahalada lagu dabto. Kaana ayuuna eegay, sidoo kalena godka ayay eegaysay. Saddexdoodii waxay u soo dhawaadeen godkii. Markaasna waxay arkeen gudaha godka inuu ku jiro geedo baamboo oo la afeeyey. Markaasi haddii Ren uu ku dhex dhici lahaa, wuxuu dhiban lahaa dhimasho aad u xanuun badan oo markaasi gaaban. Waxay labadoodiba eegeen Kaana ayagoo aad u yaaban. Ayada laftirkeedu way yaabaneed, ma ay garanayso sida ay ku ogaatay godka inuu u dhow yareen, iyo sidoo kale qaabka ayba u tuurtay nin ayada laba jibaarkeed ka culus kana xoog weyn. Maradeeda ayay gadaal u jiiday. Markaasna waxay aragtay calaamadii soo muuqatay. Kadibna calaamaddu waxay bilowday inay dhalaasho. Waxay mooday inay qoraxda tahay, laakiin waxay garatay inaysan macquuleen. Markay taabatayna waxay dareentay xanuun. Kadibna gacanteedu waxay bilowday inay gubato. Aad ayay u qaylisay markii uu dab ka kacay. Ilbiriqsi gudaheed waxay aragtay iyadoo ay dhex taagantahay goobaab inuu dab ka kacayo. Waxaana hortaagnaa laba bahal oo aad u waaweyn, mid leh madaxa dibiga, midka kalena uu leeyahay madaxa faraska. Labadoodaba waxay gacanta ku wateen waramo. Intaa ka badan anaga nagama baxsan kartid, ayay dhaheen labaduba. Kadibna way soo weerareen. Kaana ayay maqashay ayadoo markaasi magaceeda loo yeerayo. Markay indhaha kala furteen waxay aragtay Ren iyo Toshihiro oo soo eegayo. Markaa kadibna gacanteeda ayay qabteen, kor ayayna u istaajiyeen. Maxaa kugu dhacay, ayay weydiiyey Toshihiro. Kaana waxay rabtay inay u sheegto bahaladii markaasi cadaabta ilaalinayay, laakiin way aamustay markay aragtay Ren oo soo eegayo. Asaga mayse diyaar u ahayn inay ogeysiiso wax walba ku dhacay, sababtoo isaga wejigiisa weli ma uusan tusin. Hadduuse isaga aaminin ayadana sababay ku aaminto ma hayso. Ren wuxuu maqlay qayladii Kaaba, kuwaas oo ahaa kuwa soo dhawaanaya. Waa inay meesha ka dhaqaaqaan sida ugu dhaqsiyaha badanba. Markaas isla markiiba waxay bilaabeen saddexdoodaba inay cararaan, ayagoo indhaha si fiican ugu eegaya wixii ka horeeyey, sababtaa mugdiga ayaa sii badanayay. Midda la yaabka waxay tahay in Toshihiro iyo Ren ay bilaabeen inay Kaana agteeda nabad ku dareemaan. Waxay maqleen wax jabay iyo sidoo kale qaylo saa'ida. Markaasna meeshooda ay istaageen. Kaaba weeye, waxaa laga yaabaa inay ku dhex dhaceen markaasi fajiga, ayuu dhahay Ren. Toshihiro wuxuu dhageystay iyagoo markaasi qayladooda ay isku beddelayso qaylo xanuun. Ugu dambeynna ay aamustay. Hadda aamin ayaan nahay, ayuu dhahay Toshihiro. Markaasna wuxuu sheegay inay sii socdaan, isagoo ka daalay orodka, wayna lugeeyeen. Ren hore ayuu u socday si uu Kaana u gaaro. Waad mahadsantahay maadaama aad badbaadisay, waan ku abaalgudi doonaa. Markay la hadli weysana ka gadaal ayuu u baxay si uu markaasi Toshihiro ula socdo. Kaana markaasi wadada iyada hogaaminaysay. Renna wuu dhoola cadeynayay, wuuna ogaa inaysan arkin wejigiisa. Waqti kadib si u socdeenba waxay gaareen Kuro buulkiisii. Markii ay galeen, Kuro aad ayuu ula yaabay markay saddexda la soo galeen ayagoo ay wataan gacantii Kaaba. Halkiisii ilna waxay bilowday inay dhalaasho. Wuxuu qirtay inay lama filaan tahay inay ku guulaysteen inay soo heleen, sababtoo markii loo fiirsho gurigooda wuxuu ka kooban yahay gabar yar oo feerayar iyo oday weyn oo cajuus oo digsi laga dhigay iyo nin u eg tuug. Wuxuu maqlay inay niman joogaa markaasi agagaarka tuulooyinka ay wareegayeen ayagoo yunifoonkaasi qabeen. Wuxuuna markaasi isweydiiyey in saaxiibkiisu ogyahay inuu tuug la socdo. Markii uu u socday inuu sameeyo galoofiskii ayuu wuxuu u sheegay shaqaalihiisii oo ahaa wiil yara inuu saddexdooda usoo sameeyo markaasi shaah.
Toshihiro ayaa markaas weydiiyey sida wiilka yarka uu shaqaale ugu noqday Kuro. Kuro wuxuu sheegay in wiilka yarka aad ugu dhaawacmay guriga reerkiisa oo lagu gubay markaasi ayna ku gubeen kuwa tuuga. Dadka tuulada ayaa markaas waxay u keeneen Kuro si uu u koriyo maadaama uu famil kala haysanna Kuro ayaa hadda korinaya. Naxdin uu ka qaaday arrinkaas, wiilka yarka codkiisa uu waayey, laakiin waxaa la ogaaday inuu arkay mid ka mid ah tuugadii asagoo sii cararaya markii uu gubay gurigooda kadib. Markii uu u keenayay shaaha, cunugii yarka Ren ayuu arkay, kadibna wuxuu bilaabay inuu gariiro. Markaas isagoo aad u cabsanaya, Ren wuu istaagay, kadibna wuu iskaga baxay buulkii. Kana markaasi waxay eegtay Toshihiro ayadoo isdhahaysa uu u jeeda arrinkan oo dhan, laakiin Toshihiro waxba muu dhihin oo shaahiisa ayuu iska cabay. Kadibna Kana way istaagtay, Akio ayayna u mahadcelisay, waxayna ka daba tagtay Ren. Kana waxay aragtay soo ku dul fadhiyay dhagax weyn oo ka horeeya keynta. Markaas way u yeertay, way ogtahay inuu maqlay, laakiin uma uusan jawaabin. Kadibna asaga ayay hor istaagtay markii uu Kuro nooga sheekeeyey qaabkii uu Akio familkiisa ku waayey, kadibna ay familkiisa ka gubin tuugo. Adiga aad ayaad u murugaysnayd. Kana markaasi lama uusan hadlin. Kana waxay ogaatay ninka hor fadhiyay iyada inuu sir aad u xun ka qarinayo. Adiga tuug ayaa tahay soo maaha, ayay dhahday iyada farta ku taagaysa. Ama waad ogtahay qofka gubay Akio reerkiisa, ama waa adiga qofka gubayba. Jooji hadalka ayuu ku qayliyey. Kana nagagadaar ayuu baxday. Markii uu arkay inay cabsatayna wuu joojiyey hadalkiisa, wuxuuna isku dayay inuu istajiyo. Adiga mar dambana ma raaci doontid, ma raba inay wax iska kaangalaan noocaagoo kale, ayay tiri Kana iyadoo codkeeda xanaaq ku jiro. Kana way sii jeesatay si uu u tagto. Daqiiqado gudaheedna Ren ayaa hor istaagay, asagoo markaasi ay ku jirto jeejees. Noocaygoo kale ah, ma waxaa ka wadaa dambiilayaasha, ayuu jeejees ku dhahay. Waxaa dhahaysa gabadha yarta oo cadaabta loo diray, ii sheeg dambigaa gasho oo cadaabta ku mutaysatay. Kolba inaan waxaado qofna gurihiisa ka guba dambiyadeeda kuma jiro, ayay dhahday Kana. Markaasi Ren xanaaq darta ayuu dhagax u laaday. Aniga ma ahayn, ayuu dhahay Ren. Haa, aniga tuug waan ahay, laakiin wax saa u xun weligay ma samaynin. Waan arkay sida uu kuu fiirinayay, waan arkay adigoo dambi dareemaya. Markaas ayuu hadlay Ren. Aniga waxaan la socon jiray tiim waqti badan ka hor, waan ka haray, laakiin uniformkooda waa la haray. Hadda keligay ayaan shaqeeyaa, waqti badan ayaana ka soo wareegay. Adiga dadka waad dhibaataysaa, ayay dhahday Kana. Ren si xun ayuu u eegay, annagoo dhan soo dadka maana dhibaateen. Kana way ka sii jeesatay, ayada ma aysan diyaar u ahayn inay u sheegto. Adiga ma dhibaataysay mise ma aada dhibaateen Akio reerkiisa? Ren isla markiiba madaxa ayuu raxay. Aniga isaga ma garanayo, laakiin sheekadiisa markii aan maqlay waxyaabo nolosheeda hore ku saabsan ayay xasuusisay. Kana gadaal ayay u soo eegtay, waxayna aragtay inuu run sheegayo. Waxay rabtay inay rumaysato, haddana ma ay rumaysan karto. Sirar ayuu garanayaa soo maahan, laakiin iyadaba waa garanaysaa. Markay dadkuna sirar qariyaan, ayaga lama aamini karo, soo maahan. Toshihiro ayaa soo baxay, kadibna Kana ayuu u yeeray. Ayada haye ayay dhahday, kadibna Ren ayay soo eegtay. Waad ku mahadsantahay caawinaadaada, laakiin sidaan hore kugu sheegay, xaggan ayaan ku kala haraynaa. Ren wuxuu dareemay wuxuusan noloshiisa oo dhan uusan dareemin. Qalbijab. Gabadha hor taagan waxay weydiinaysay inuu ka haro, waxayna u degdegaysay inay iska reebto. Noloshiisa dhan wuxuu ahaa mid cararayay, laakiin markii ugu horreysay noloshiisa wuxuu rabay inuu joogo. Wuu ka yeelay isagoo saa'id uga xun, wuuna foorarsaday. Kanana sidoo kale u foorarsatay, kadibna waxay u dhaqaaqday dhinaca Toshihiro. Guriga ayay gashay, ayadoo rabtay inay aragto Kuro oo sugayay. Toshihiro wuxuu arkay Ren oo sii jeestay, kadibna u dhaqaaqay dhinaca keynta. Toshihiro wuu dhoola cadeeyey, albaabka ayuuna xiray.